السلام عليكم دمان bulshooyinka muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan rabaa inaan mawduuca uga hadlo halkan uga hadlo mawduuca ah dulqaadka ama sabarka sidaan la socon waxaa ku jirnaa bil barakeysan bisha barakeysan waxaa la rabaa qofka muslimka inuu dulqaadka badiyo dulqaadka marka laga hadlayana xadiis oo waxaa jira nabiga laga soo wariyay salawaatullahi wasalaamu calayh oo dhahayo laa taqdab ha caroonin kelmadda laa taqdab ha caroonin maxaa laga wadaa culimmadu waxay ku fasireen waxay dhihi ha caroonin waxaa laga wadaa dhibaato walbo kugu dhacdo ama wax walbo ku saameeyo dhib walbo adag kuu imaado waxaa la rabaa inaad sabartid oo dulqaata iska ilowdaa la rabaa laakiin inaad tiraahdo aniga falcelina ka bixina ama waa ka jawaaba ama maxaasaan la yeelaa arrintaas waxay ku keeni doontaa dhibaatada inaad dhibaato kaweyn ku bedeshiday keeni doontaa waxayna sababeen in ramadaankaaga kaa buray sabab doontaa marka bisha ramadaan waxyaabaha oo dadka loogu farad yeelo waxaa ka mid ah in dadka ay bartaan yacni soddonkaas maalmood oo bisha barakeysan lagu guda jiro inay bartaan dulqaadka inay bartaan maxaa u dulqaadinaysaa gaaja u dulqaadinaysaa soddon maalmood waxaa lagu yidhi subax qaar waxay afuraan 10 saac bar ilaa iyo 12 galabta la gaarayo waxaa lagu yidhi afkaaga heeso waxaa lagu baroyaa marka dulqaada lagu baroyaa inaa calooshaada hunguri ku ridi karin dadaa marka waxay leeyihiin aniga ma dulqaadan kari oo maxaa dhacay ani waa jiranahay shaydaana marmar siduu alifaa wuxuu leeyahay waxaa dhahda aniga gaasaan qabaadhe haye ani waxaan qabaa laabajeexaan qabaadhe haye ani daawa ii socoto dheh marmar sidoo shaydaan u alifaa marmar sidaasay qaadanayaan marka dadkaas maxaa waaye waxay raaceen shahwaadkooday raaceen qalbigooday raaceen marka maxaa lagaa rabaa bisha barakeysan inta lagu guda jiro ina isbartid sabarka ina isbartid soddon maalmoodaa sooman tahay maalin walbana waxaa ku qasban tahay shaqada inay aadin adoo baahan qof walba shaqooyin kala duwanaa ka shaqeynaa subaxyaa baxe adoo baahanaa shaqadaada aadee galabka waxaa kasoo naqanaya 12 kasoo naqanaya waxaana tahay qof oo baahina calooshiisa hayso jirkiisana daalan oo baahan oo haddana qanacsanaa tahay qof xanaaqaya ma jira dhahay aniga maanta maxaa u soon ma jiro maxaa lagu baroyaa sabra lagu baroyaa haye haddii ramadaanka laga bax macana la gudboon bacdi ramadaan maxaa lagaa rabaa bacdi ramadaan waxaa lasoo furaa odaygii anigana waswaasi jiray aabbihii waswaaska waa taqaaniin shaydaana lasoo furaa shaydaanka markii lasoo furo irdihii jannada la fura la xiraa irdaha naarta la furaa bacdi ramadaan marka waxaa lagaa rabaa camalada hadda asbarta inaad samaysid quraan akhriska badinta adkaarta ama tasbiixda inaad laasimta aad dib u soo celisid aadan dhihin ramadaan waa laga baxay wixaad ka dambeeyay cibaado laga maro cibaadada maxaa waaye cibaadada waqti ma laha dheed ma laha cibaadada ma laha bishan soddon maalmood ilaahay caabuda wixii ka dambeeya waa iska soconaa lama rabo cibaadada waxaa lagu bartaa sabarka lagu bartaa waxaa arkay dadka markay dhaafaan da'da 40 sano maxaa cibaadada u gooy dhammaantood tusbaxay wataan tusbax maxaa wada dhiibay oday walba doo kaa hor imaana tusbax oo wataa waa adkaaru akhrisanaya jirka bini aadanka inta u dhexeysa da'da 18 years ama 15 years ilaa gaara 40 years wuxuu ku jiraa garowka ku jiraa koriimo ku jira ambiyada waa taqaaniin markii nebi ama rasuul la soo saarayo 40 jira waa soo saaraa lagu magacaabaa inta badan rasuul ama nebi ka yar 40 sano lama arkan maxaa risaalada loogu dhiibay 40 sano xadul buluuq oo wuxuu gaaray maskaxiyan iyo aqliyan iyo jismiyan oo u diyaar garoobo gaaray laakiin markuu ka yaryahayna maxaa dhacay shahwaati nafsiga qaadaya shahwaati nafsiga maxay gelinaya marka dhibaatooyin badan oo ku dhaca waxyaabo badan oo sameynaya in la hormoonaadka jirka bini aadanka hormoon walba wuxuu leeyahay age oo kusoo active gareysmo qofka markii lahay wuu qaangaaray age oo ku qaangaaraa da uu qaangaaraa 15 wixii ka badan u qaangaaraa dadka qaar 14 ilaa wixii ka koreey ku qaangaaraa qof 14 ka yar ma rajeynaynaa in jirkiisa laga arko hormoonaadka qaangaarkan laga arko ma rajeynayno saas tilmadeena qofka markuu da'da 40 gaar hormoonada soo baxay garaadka hormoonaadka soo saara soo baxay markay soo isbaxaan waxa bilaabanaa qofkan jirkiisa inuu bilaabo inuu isla xisaabtamo marka wuxuu dhahaa adduunyada maxaa lagu keenay adduunyada waxaa lagu keenay ilaa la yacbuduun bas وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحكى لما جرى ديو لو كان قفكو حساب تما جاو اسودي marka yareed banooni soo dheeshay waa soo bodbooda ciyaal xaafada soo martay dhibaatooyinkaas markay saameynayaan waxay saameynayaan qofka bini aadanka saameynaya marka
إلهي وعير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حكمته كجرت ما حيتها أنا waxaa idin abuurin ay caabudin wax kale laguma abuurin qofka markuu 40 san gaaro hormoona jirkiisa soo daliiqa dad ka yar ku fahmo way jiraan ilaaha hormoonka soo hormariyay ilaa waa maqasheen Aisha 9 san u qaan gaartay ma la qariibsanaya marka qof oo 18 jir ah garaadkiisa wuxuu gaaray inuu fahmay waxyaabaha asal loo abuuro fahmay qofna 40 sano ku fahmay farqiga u dhaxeeyo daada farqi u dhaxeeyo laakiin garaadka hormoonka oo jirka la soo saaray waqtiga qaarna waa loo soo hormariyaa qaarna waa loo soo dibdhigaa marka waxaan ku duceysanaynaa bishaan barakeysan maadaama aan anaga dhan wada soonna inaan wixii ka dambeeya aan barno dulqaadka inaan barno iyo waxyaabaha anagana la abuuray aniga waxaana la abuuray oo ilaahay adduunyada noo keenay ilaa liyacbuduuna noo keenay ilaahay adduunyada nooma keenin 10 biyaan inaan dhisano hoteelo waaweyn inaan magaalada ka samaysano ganacsiyo badan inaan magaalada ka samayso ilaahay nooma abuuray ilaahay muxuu noo abuuray ilaahay waxaa idin abuuray in aan caabudana idin abuuray qiso oo ku jirtaa jiro suurata tawba nin oo saxaabi ay ku soo dhigatay marka haddii aad ku fikiraysid inaad rabtid inaad dhaqaale fara badan ilaahay ku siiyo qisadan dhageyso ilaahay muxuu yiri minhum man aahada allah la in aataana min fadlihi lana saddaqanna wala akunanna min as-saalihiin yiri nina wuxuu yiri aniga waxaan rabaa yiri dhaqaale inaan sameeyo yiri qisadu waxay ku timaaday salaado tukanaay salaada markii la tukado waxaa la sameeyaa adkaarta oo salaada bacda salaad la akhriya jiro adkaarta ma akhrin ninkan adkaarti salaam alayhi salaam markii loo orday rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri warniyahu waxa kugu dhaco yiri saxaab Allah markaas wuxuu yiri islaanteeda aniga halka mara naga dhaxeyso waa baxa guriga aada maradana siina idin ku tukanay ana waa soo baxay masaajid jamaacada ku maana ku tukanaa rasuul Allah noo duceey inuu ilaahay dhaqaalna siiyo alxamdulillah dhoo yiri nimca haysataa adduunyo meesid aakhira haystaa markaas saxaabigu wuxuu yiri ana adduunyo dhibkaana hadda ku jira waa iijeedahay ilaahay rasuul Allah ii duceeyo yiri inuu ilaahay wax yar adduunyo iga siiyo halka mar oo naagteeda mar qaadanaysa mar aan gashanay inaan ka baxay ugu duceeyo markaas loo duceeyay ninkii markii loo duceeyay xoolo lagu sadaqaystay xoolihii oo qaatay way u bateen xoolayaal noqdeen ninkii salaadii waa laga waayay markaas nabi rasuulku wuxuu yiri war aabi saxaabigii hebel ahay بعد العصر waa la waayay casirka ma la arkay xilliga oo xoolaha la soo xareenayo waay dan maxaa dhacday casirkii la waayay hadana maxaa la waayay waxa la waayay بعد المغرب kii la waayay hadana waxa la waayay salaad subax bas oo imaanay cishii waa la waayay duurka waa la waayay hadana waxa la arkay salaad subax waa la waayay jumcihii loo imaanaa hadana magaaladii inuu soo guuray oo wuxuu aaday magaalada banaankeeda waayo waa taqaan eriga magaalada dhexdeeda lagu maahay kara tira batan erigiisa tiiri amal u bateen kadib maxaa dhacday saxaabadii waxay dhaheen war zakaha laga doonay dhaheen waxa la gaaray xilliga zakada la bixinayo aayadaha marka akhrisid way ka sheekeynaysa tafsiir ay u sheekeynay marka zakadii loo doonay wuxuu yiri idinka baada wadiino yiri zakam buu soctiino dhahay nabiga loo sheegay zakada uu soo diiday Allah saxaabi hebel markaas wuxuu yiri zakada ma soo diiday ha yaa la qaadin oo iska dhaaf yaa la weydiin kadib wuxuu soo hanuunay casrigii saxaabiga oo Abu Bakar xilligu talinayo أو بكر وكينا وحيره هو وحارب بين الزكديم من الرسول كنول زك غادي وما عنك غادي صلى الله عليه وسلم عليه مركا رسولك والنول قف وحك غادي واي هذا ورسولك دنتي حلي وخلفاء الراشدين اللي قاري وحك غادي إنت وحك غادي اللواي نينك بنانك وقصور دعي صحابي مرضى مود دنتي أصل حوله هيستو دنتا مركا حوله محي كوتري هذا ديودي هيستي حوله هيستا مسا قيسنين أمم مساكين وحمو قبنين ama waxaad ahaw siyaasi ahaw ama ganacsado ahaw ama aqoonyahan ahaw marka bari wax walba adduunyada wada kaabanta waa dhimi karnaa marka mawduuca intaas ku soo goobeena sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh